Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sidaan wadoognahayba gaadhigu fura la'aan ma dhaqaaqo. Furaha ka sakow gaadhiga waxaa dhaqaajiya oo kaalin muhiim ah ugu jira shidaalka ama naafatada. Hadduu shidaalku ka go'ay ama gaadhiga shidaalku u goostay, gaadhigaas bartiisa ka dhaqaaqi maayo. Waa sidaas oo kale jidhka bini'aadanku kama maarmo tamarta, ama haddii tamartiisa hoos u yaraato waxba qaban kari maayo qofkaas. tamartu waa shidaalka nolosha. Marka aad ku sugan tahay xamaasad darajadeedu aad u sarreyso, tamartaaduna way sarreynaysaa. wax walbana maalintaa waxaad awood u leedahay inaad qabsatid, maadaama ay tamartaadu ay kacsan tahay. Wuxuu yidhi Jordan Bernardus, caqliga caafimaadka qaba jidh caafimaad qaba ayuu ku jira. waxa muhiima in labadaba kor loo qaado si aad ugu noolaato nolol fiican oo caafimaad qabta. mid ka mid ah muxaadarooyinkii ugu qiimaha badnaa ee uu jeediyey Dr. Ibrahim Al-Fiqi, Allah u naxariiste, oo muxaadaradeedu ciwaankeedu ahaa nolol caafimaad qabta, ayaa wuxuu yidhi, waxaan weydiiyey mid ka mid ah dadkii soo xaadiriyey, yaa idinka mid ah oo tarbiyadeeya bisad ama ey? mid baa yidhi buu yidhi, ey ayaan tarbiyadeeya. waxaan weydiiyey, aroor walba eygaaga ma kicisaa siduu u socdo? wuxuu ku jawaabay, haa, saacad buuxda ayaan socodsiiyaa. waxaan weydiiyey, sigaar iyo khamri ma siisaa, ama se cunto nooca ay doontaba waad siisaa? wuxuu yidhi, may, cunto lagu talagalay ayuunbaan siiyaa. waxaan weydiiyey, eygaagu qiimihiisu waa imisa? wuxuu ku jawaabay, qiimihiisu waa $500. haddana waxaan weydiiyey, adigu nidaamkaaga cunto waa sidee? wuxuu ku jawaabay, anigu aroortii ma quracdo, keliya qaxwo badan uun baan cabbaa. qadadiina waxaan iska cunaa sandwichiid, waayo waan mashquulsanahay. cashadiina waxaan iska cunaa wax kasta oo guriga yaalla. waxaan kale oo aan weydiiyey, ma samaysa wax jimicsi ah? wuxuu ku jawaabay, maya, wakhti uma haysto. su-aashii ugu dambeysay ee aan weydiiyey waxa ay ahayd, sigaar ma cabtaa? wuxuu ku jawaabay, haa, waan cabbaa, maalintii baakid ayaan dhammeeya. bal haddaba arrintaa aan isla falaqayno, ayay turtoorkii ninkii ku yidhi, eygaaga waxaad siisaa cunto u khaas ah oo lagu talagalay, maalin kastana waad socodsiisaa si uu u jimicsado, mana siisid khamri iyo sigaar. waxaad sidaa aad u samaynaysaa si aad u ilaaliso caafimaadkiisa. adiguse maalin kasta waxaad cabtaa baakid dhan oo sigaar ah, jimicsina ma samaysid. cunto kastana waad iska cuntaa adigoo aan u eegayn nooca ay tahay. bunkana waxaad u cabtaa si daran, iyadoo jidhkaagu uu qiimihiisu yahay $malaayiin. ninkii wuu qoslay, wuxuuna yidhi, sidaa awgeed aniga ayaa eegayga ka hor dhimanaya. dadka waxaa loo qaybiyaa 3 qaybood. isku day inaad 3dan qaybood aad iska dhex fiirisid inaad ka mid tahay adugu. kow waa dad guulo ka gaadhay noloshooda qaybaheeda kala duwan, oo leh nidaam cunto oo caafimaad leh, kuna dadaala isboortida, wakhti gooniyana siiya, waxayna markaa ku noolaadaan nolol miisaaman oo caafimaad qabta. 2 waa qayb guushoodu ku kooban tahay shaqadooda, waxayna leeyihiin hadaf ah inay shaqadooda guul ka gaadhaan, hanti badanna ay abuuraan. xaqiiqada, dadkani way guulaysanayaan maadi ahaan, laakiin kuma guulaystaan qaybta caafimaadkooda jidhkooda. tusaale ahaan, nidaamka cuntadoodu maaha mid dheeli tiran. sigaar bay cabbayaan, shaah iyo bun bay cabbayaan, waxayna ka cawdaan inaanay wakhti u helin jimicsi, oo aanay shaqadooda wakhti aanan uga helin wakhti ay jimicsadaan. cudurdaar bayna ka dhitaan. waana dadkaas waxa weeye inta badan dadka shaqadooda ku cayilay oo shaqadooda ku ilaaway jidhkooda inay dhisaan. 3 waa nooca noloshooda madhan tahay. waa nooca aroortii noloshooda ku bilaaba cabitaanka sigaarka iyo koob buna, kadibna gaadhigooda kaxaysta si ay shaqadooda u tagaan, maalintiina gelinka dambe soo noqda si ay ugu cunaan cashadooda, iyagoo oo aan u aabayeelin nooca ay cuntadoodu tahay, ma mid qiimo leh ba mise waa mid qiimo daran oo caafimaadkooda waxyeeleynaysa. kadibna iska daawada telefishinka ilaa ay hurdo ka qabanayso. aad bay u yartahay inay ka fikiraan marnaba inay jimicsi sameeyaan dadka caynkaasa. dadku waa 3da nooc oo laga helo meel kasta oo caalamka ka mid ah. cilmi baadhis ay sameeyeen khubaro Maraykana waxay ogaadeen in 50% ka mid ah Maraykanku ay u dhintaan xanuunada qalbiga, 30% ka mid ahna ay u dhintaan cudurka kansarka. dheefshiidka waxaa dhacda marmarka qaarkood inaad kasoo toosto hurdo aad u dheer oo ugu yaraan 6 saacadood ama 10 saacadood aad hurday, haddana aad weli daal sii dareemayso. haddii
haddii ay arrintaasi kugu dhacday sababta ka dambeysa waa dheefshiidkaaga oo xun, waxaa laga yaabaa inaad cuntay cunto subagu ama saliidu ay ku badan tahay kadibna aad seexatay. taasna markay dhacdo jidhku wuxuu ahaanayaa mid soo jeeda oo ku mashquulsan shiididda cuntada subaga leh ee tamartaada la hadhay. waxaa taas la mid ah markaa aroortii aad cunto aad ugu culus, waxaa dhacda 80 dhiigaaga ka mid ah inuu u kaco dhinaca iyo caloosha si uu u caawiyo dheefshiidka. haddii aad cunto kale ku darto, adiga ayaa caafimaadkaaga dilaya. taasina waxay keenaysaa inaad tamartaadii hoos ay u dhacdo, aad dareentid daal iyo wahsi badan. haddaad cunto kale ku dartid iyadoo cuntadii hore dheefshiidkaaga shiidin, tusaale ahaan iminka aad quraacatay haddana qof kale ku yeedha ku yiri kaale ila quraaco, taasi wali maan ahayn, dheefshiidkaaga khalkhalaya, wahsina wad dareemaysaa dhowna xanuun baa halka ka qaadaysa. haddaba ilaahay ka sakow aduu caafimaadkaagu gacantaada ku jira, isku day inaad caafimaadkaaga aad ilaalisid. waxaa jira sidaan ka soo hadalay dad noloshooda ku ilaawa shaqadooda ku dhexyiila. isku day haddaba inaad maalintii 20 daqiiqo aad jidhkaaga dhistid. taasi waxay kaa saacidaysaa inaad firfircooni badan aad heshid, tamar badan aad heshid, wax badan aad qabsan kartid. haddii kale haddaad wax kasta iska cuntid, markaas waxay noqonaysaa markii aad caafimaadkaaga ku ciyaarto. caafimaadkuna waa shay qaaliya, bini'aadankuna waxba muunan ahaan lahayn hadduunan caafimaad haysan. marka caafimaadku waa shay qaaliya, ilaahayna la weydiisto, ilaahay noo siyaado caafimaadkeena. muuqaalkeenan intaasu maanta ku eediyay. haddaad channelka ku cusub tahay, subscribe baad saaraysaa. haddii hore noola joogtayna muuqaalka leed baad saaraysaa. leedtu muuqaalka waxay ka saacidaysaa siduu dad badan u gaadho. leedtana muuqaalka saar hadduu ku cajibiyey, leedka ka ilaali. gambaleedka markaad furatid waxaad awood u leedahay isla waqtiga aan soo dhigno muuqaal inaad daawatid. gambaleedka inaad furatid isku day sida muuqaalada isla waqtiga aan soo dhigno aad u heshid. muuqaalkan muuqaalka xiga aan iskugu imaano, waxaan iga tegayaa amaano Allah. wassalaamu calaykum.